wuxuu ahaa wan u baahnayn waqtigii baa dhamaaday I know laakiin wuxuu ahaa mustaqbal leh oo wuxuu ahaa dadku ay u baahan yihiin oo intaas oo boqolaal oo kun oo qof maanta halka ka fiirsanaysa iyo qaar la joogay hooyo aabbo ahaa kuwa la joogay hooyo aabbo ahaa oo wixii ilaahay dadka uga soo qaaday ku quudinayo siinayo ilaahay ugu soo dhiibay annaguna waanu daawanaynay oo hadii ilaahay wax naga qaaday isaga ugu dhiibay marka ilaahay u soo duceeyay in ilaahay u naxariisto kuwa dilayna ogaada annagu idima naqaayna ma arag laakiin alla waa idin yaqaana allana waa idin jeeda laba qof oo adiga 40 bari amba 45 bari kala maqanna waa iska dareemi kartaa moogta waxa la isdhigi karaa sax waaye waa isfurina isdhigi kartaa waxa ku dhaxshaadiyo Cabdi Fataax bariyahan wax masla soo duubaan wax la isweydiinay marka waxa isdhaysan labadaan way kala tageen maadaama oo dadka social media badanaa inta la isguursado la kala tago horta waxa ana Cabdi Fataax ma kala tagin marka runta laga hadlo alxamdulillah دائما إنا مارت شيء مو هبونه ما فهمتي قف لاني عبد الفتاح وان اسقنا ده انت كدب وحسن ما قام إنا لله وإنا إليه راجعون قلبي جوا حنونه يا والله وان حي غير نحذم بدن بان أركي ويلكي هذا ندي سوق لي فلاير كيسة عثمان صلاة ميال الله مجلسة دار خلدرين هي معقول يكون مقعدين أطورها بطا ويلكا جريسات بنوانح جريدو كلا حنون بدن دتكو ويسعدا وقت جيسة انت أهيد لكن حنون بدن بندريميا ورتوا كوي أنو أقول مالها برسنالا لكن وحن آد للسعودي بيج جيسة مرول بنوان أركتشري سقول الله يفا aqoon kalno maan lahayn aan ka ahaynaan halka ka arkay isagoo samafala ah oo dad caawinaya haday ku tahay dad masaakiin oo tabaalaysan haday ku tahay maxaan ku raday qaraxyadii ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wax badan isagoo sameynay isagoo bada jooga ilmo yar wuxuu ahaa ma sha Allah ilaahay farxad iyo mataqaana iyo reyn qalbigiisa wajigiisa aad uga muuqatay hasa ahaatee maanta ay tiisi noqotay waxaana aan mataqaana uga hadlaya waxay tahay geeridiisa way taabatay aad bay ii taabatay runtii waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka raali noqdo intii kula dhalatay ehel iyo qaraabo oo mataqaana aqoon u lahaana ilaahay samir iyo iimaan sadiiqa ka siiyo waalidkii dhalayna hadday ifka joogaan ay kaga dambeeyaan waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo hadday ka horeeyeenna ilaahay kuwii jannada ku kulansiiya Allah ka dhigo aqoon personal oo maanaan lahayn haddaan ku hadla afka ummadda kaleeto dee ila arki jirtay oo aysan aqoonta isku lahayn sidaydoo kale laakiin wuxuu noqday qof aan caadi aan u aqaan oo kale noqday waaye everyday waan arkay wiilkaas life soo ku jiro wax wanaagsan uu sameeynaya wax qurux badan oo fiican buuna ku suntanaa oo dee lagu bartay waxaan leeyahay ilaahay ha kaa jaa'isiiyo ilaahay ha kaa abaalmariyo sida aad masaakiinta uga farxin jirteen ilaahay ha kaaga farxiyo waa bil Ramadaan waa ayaamihii ugu dambeeyay kow laba saddexdii ugu dambeysay Ramadaan aan ku jirnay fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdegaad ku farxday ilaahay ha ku siiyana wararkii ugu dambeeyay ayaan ka dabageenayaa waxaan ku leeyahay ku soo bir xaqsuur TV muuqaalkana noo leey garay channelkana ku soo bir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka dunida oo degdega sida halka ku aragto waxa weeye waxa qortay Casiisa oo ah xaaskii Sooraan walaasheena qoraal dheer baraha bulshada ku soo qortay ayaa sidan oo kale u soo qortay waxaan idinka codsanayaa inaad u soo ducaysaan Ismaaciil Sooraan abwaan Sugulle oo ahaa waxa weeyaan abwaan caan ka ah gadiga Soomaaliyeed Sooraan Ismaaciil Sugulle ilaahay godka ha u nuuro ayaan ku leenahay
sidaad halkaa ku aragta waxa weeyaan cabdiraxmaan u ducee oo ay ku dhacday dhacdo xanuun badan wiilkan oo ahaa waxa weeye arday ka mid ah ardayda magaalada muqdisho ee ka baxday jaamacadaha oo markii dambena ku biiray jaamacad ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho ka noqday macalin heer caalami ah ayaa waxa weeyaan qaliinkii labaad ku gelaya dalkaasi turkiga u soo ducee walaalkeen oo waxa weeye xalay toore waxa weeye qaliin qaadanaya 10 saacadood galay u ducee wuxuu kaaga baahan yahay maanta duco sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan qiso miski iyo waxa weeye cabdicasiis oo waxa weeye 8 sannadood oo xiriir shacayr soo waday ugu dambeyn maanta ayaa waxa weeye ay isu soo fadhiisteen oo ay midoobeen hambaliyo ayaan idinku leenahay sidoo qoray wuxuu yiri waan soo samirnay wax ka sarweyna soo dhaxmaray 8 sannadood ma yara oo waxa weeye xiriir shacayr wadaga arkaya dadkaas siday uga midha keeneen sidaad halkaa ku aragta waxa weeyaan ma la furay shaadiya sharaf sida beri maalmo dhexdaas markay shaadiya sharaf turkiga timi waxaa lagu eedeeyey inay cabdifataax yare isku soo dhufsadeen biraha balse arrintan maxaa ka jira arrintaas way dhammaato way ka soo wada hadleen haddana meeshii maxaa soo dhex galay muuqaala shiliin oo ciyaal dalkaas hadda ay joogto ku nool ama wiilal ayay la soo sameysay waxa weeye muuqaala shiliina oo waxa weeye waliba iyagu isjiidanaya oo ay dadku ku tilmaameen inay raggaas shaadiya sharaf ay ka tahay rag ajnabi ah oo aanay taaban karin ama aanay muuqaala la tuubi karin kullay way is-eryanayaan mana taabanayaan balse waa dad walaalaheeda oo ay muuqaalabada duubayaan balse dad badan oo Soomaaliyeed ayaa arrinkan shaki geliyay dhowriyo 60 habeen ayay ka soo maqantay shaadiya sharaf muqdisho iyo ninkeedaba iyo reerkeediiba ma kula tahay inay isfureen muuqaalkan waxaad ku ogaan doontaa xaqiiq dhaba oo ku saabsan shaadiya sharaf sidaad halkaa ku aragta waxa weeye gabdho isku laayay waxa weeye sheekh yar oo baraha bulshada caanka ah oo lagu magacaabo sheekh daaci runtii kolley arrintaas dadka run moodaya maaha run balse waxa weeye dad raba inay ku soo caanbaxaan oo micnaha sheekh daaci waan shicil lahay ah haddaad aragto dad baraha bulshada sidaas hadda sida laysku fahmay arrimaha noocaas oo kale ah waynu fahanay arrimaha noocaas oo kale ah dadka saaxiibul caqliga ahi way ka dheregsan yihiin cidina isma shicla gabdhana iskumay layn balse sheekadani waa caan dhalay aan noqdo sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan ilaahay godka ha u nuure shalay waxaa magaalada muqdisho lagu dilay cismaan oo ahaa waxa weeye samafale nasteexa indho oo waxa weeye baroor afka furatay wadaga arkaya sidoo kale sidaad halkaa ku aragto waa nimco oo ah hooyo Soomaaliyeed oo kaaga baahan maanta caawin waxaad u awooddo halkaa kala xiriir waxay haysataa 8 caruur ah oo aan waxba haysan aabahood waxba ma hayo oo waa bilaa camal bay tiri maxaad u awooddaa oo aad halkaa ugu diri kartaa daawadahaagan daawanayo runtii waa muuqaal aanan baahan karin oo waxa weeye murugtiisa wata la xidhiidh hooyo nimco waxaad awoodana halkaa ugu dir dad badan oo Soomaaliyeed oo waa muxsiniin oo walaalaheena waxay gaarsiiyeen walaalahood oo waliba ay dadka qaarkood ay ciisiyeen caruura yaryar iyo hooyooyin aan markaa waxba haysan ma baahan karno balse la xidhiidho halkaa waxaad awooddo ugu dir adigana ilaahay wax wanaagsan oo khayr leh ayuu kugu bedelaya wararka ayaa afkareen falanqayn doonaa waxaan ku leeyahay bira wilaa dhamaad ila soco ay ku socon sidaad halkaa ku soo aragtay waxa weeyaan shaadiya sharaf oo baraha bulshada lagu baahiyey oo laga been abuurtay waa arrin asariya raad lahayn oo la rabo waxa weeye in dadka xaasidiinta ay reerkan waxa weeye kala kaxeeyaan sidan hore u aragnay dad badan ayaa waxa weeye isku dhuftay oo horta hadday sheekadani wax shiliina u eegayd tani shiliin maaha dad waaweyn oo odayaalaha waliba waxa weeye wadaada ah oo culimo ku jirtaan xataa arkay oo dad culimo isku sheegaan culimana aan ahayn oo dhalinyaro culimo la moodayo dadku qaarkood moodayaan oo aanan halkan ku soo bandhigi karin ayaa iyaguna sidaa baraha bulshada muuqaala ugu soo duubay inkaas aanan soo qaadan karin balse shaadiya sharaf iyo cabdifataax yar weligoodna isfuri maayan taana ku hamiya wadaga halkaa ku arkay inaad si nasteexa indhahayda oohin afka qaftatay ilaahay godka ha u nuuray walaalkeen cismaan oo ahaa samafare ka mid a samafarayaasha magaalada muqdisho sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan oo duca kaaga baahan walaalkeen cabdilaahi oo waxa weeye weliba ahaa macalimiinta waaweyn oo weliba dhalinyaro ah oo ka baxay jaamacadaha magaalada muqdisho qaliinkii labaad ku galay xalay
10 saacadood oo xidhiidh ah ayuu qalliin galay maanta kuma laha isoo caawi kuma laha wax ii soo dir ii soo duceeb ku leeyahay hadda qalliin wuu galo wuu dhamaystay xalay buu galay balse wuxuu kaa rabaa inaad u ducayso oo waayo ducada waxa weeye wax lagu meel mara weeye gebigeedu u ducee walaalkeen waxaan leenahay ilaahay caafimaad degdeg ah ku siiyo hooyo nimcana waa iga tare ee waxaad awoodo halkaa ugu dir haddaad hal haysa xataa ugu tuur halkaa oo warayso oo toos maqaliyo muuqaalba kala xidh